السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسولو أفن أكاديمي وانيجي هاولالكيني تامر محمد sida waad ognahay cashirkeeni ugu dambeeyey wuxuu ku saabsanaa markaa 3 software oo qof walba muhiim u ah waxaan soo qaadanay softwarekii koowaad ee ahaa Chrome Google sidoo kale muuqaalkaas waxaan uga hadalnay sida loola soo dego waxyaalaha iyo markaa sida installationka loo sameeyo soo muuqaalkaas hadaadan daawan waxaan kusoo saarayaa qaybtan kore soo markaa kala deg muuqaalkeeni maanta waxaan kusoo cayiminay muuqaalkii hore inaan qaadan doono laba muuqaal oo ah VLC iyo WinRAR soo marka maanta waxaan ku horumaraynaa WinRAR haddaba waad isweydiinaysid waa maxay WinRAR aan kaaga jawaabo WinRAR-ku waa software markaa softwarekaas oo kaa saacidaya inaad samaysid RAR zip iyo RAR4 sidoo kale WinRAR-ka wuxuu faylashaada kugu xirayaa password wuxuuna kaa saacidayaa in faylashaada aad soo aruurisid aad isla keento markaa hal sanduuq aad u samayso password aadna ka ilaaliso inay galaan viruska iyo waxyaalaha kale soo marka WinRAR-ka shaqadiisa haddaan waa qeexa dhaho intaan kuma soo koobi karo aan ku horumarno WinRAR-ka anagoo ka qaadanayno inta ugu muhiimsan ee qofka ugu baahan yahay inuu ka barto WinRAR ku soo dhawow muuqaalkeeni maanta ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadan sida arkaysa hadeertaan waxaa ku dhex jirnaa desktopka anagoo markaa gudaha ka soo galnay soo marka desktopka sida arkaysid waxaa ii yaalo WinRAR-kii waa kan haddaad ku wareersan tahay marka sidaad u heli lahayd WinRAR-ka waxaan kusoo sheegay muuqaalkii hore sida loola soo dego WinRAR VLC iyo Chrome Google muuqaalkaas halkan ayaan kusoo saarayaa ka daawo markaa ku dhufa linkigaas kore ka soo baxayo sidaad u daawato muuqaalkii hore soo marka muuqaalkeeni aan gudagalo WinRAR-ka waa kan wejigiisii sida arkaysid WinRAR-ka waxaad u adeegsan kartaa qaabab fara badan soo marka waxaan ku horumaraynaa ama waxaan qaadanaynaa qaabka ugu fudud oo qof walibana fahmi karo soo waxaad imaanaysaa meesha aad rabto inaad ku xirto WinRAR-ka soo waxaad samaysanaysaa folderkaas aad isugu keento faylashaada oo idil waxaan samaynaynaa folder haddaad ku wareersantaa folder wuxuu yahay waxaan soo samaynay muuqaal hore oo lagu magacaabi jiray basic of computer ahaana course dhammaystiran course-kaas qaybtan kore ayaan kusoo saarayaa haddaad folder ku wareersantaa aad tahay qof beginner ah course-kaad daawo wax badan aad ka fahmi doontaa biidnillaahi albaari soo marka folderkii haddeertaan aan sameeyey ayaan waxaan u bixinayaa magac waxaan ku qorayaa tijaabo folderkan tijaabo aan sameeyey like markaa folderka sidaan u samaysid adiga waxaad soo qaadanaysaa folderka waxyaalihii aad gelin lahayd tusaale iisoo qaad markaa like midkan copy iisoo dheh soo marka filekan aad copy soo dhahdo filekan dhexdiisa sida arkaysid waxaa ku dhex jiro markaa waxyaalo kala duwan soo filekaas ayaan copy soo dhahanayaa then desktopkayga ayaan kusoo laabanayaa soo waxaan aadayaa folderkii aan sameeyey ee tijaabo filekii hadda soo qaaday ayaan basti ku leeyahay soo hadda marka filekan waxaan soo dhexgeliyey folder kale oo markaa Advanced Designs la dhaho folderkaas waxaa kusii jiro sawiraan iyo waxyaalaha kala duwan soo waxaan rabaa faylashan inaan markaa ku xirto hal markaa zip ah ama hal RAR ah sidoo faylashan ii kala daadan oo markaa virus iyo waxyaalahana uu u gudbin marka folderkan arkaysid ayaan rabaa inaan ku xirto markaa RAR soo waxaan leeyahay right click folderka dushiisa ayaan waxaan ku leeyahay right click iyo left click waxaan kasoo sameeyay cashir hore asna haddaad markaad ku wareersan tahay right click iyo left click add course-ka basic of computer waxaad taawanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay to archive soo markaad taawatid qaybtaas waxaa ku soo baxaya bookiskan yar aad arkaysid bookiskan wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan sida arkaysid laakiin wax u muhiimsan waa qaybtan inaad fahantid halkan waxaa kaaga soo baxayo magaca uu ku soo bixi lahaa sanduuqa ama qaanada aad samaynaysid halkan waxaad ka dalbanaysaa qaanadaas aad samaynaysid markaa type-ku uu yahay inuu zip noqdo inuu RAR4 noqdo soo halkan waxaad ka samaynaysaa methodkaaga nuucu yahay fast normal good best like normalka ku dhaafo marka halkan waxa ku wanaagsan in markaa sidiisa aad iskaga dhaafato soo dadku waxay u badan yihiin inay adeegsadaan markaa RAR anna waxaan jeclahay inaan adeegsado RAR adiga markaa RAR4 waa isticmaali kartaa zipna waa isticmaali kartaa dhammaan waa isku mid hal wada ayaa loo fura hal wada ayaa loo xiraa soo halkan waxaad ka dooranaysaa size-ka uu noqon karo wuxuu ku tusayaa size-ka ugu dambeeya uu shaygan noqon karo soo marka size-kiisa ayaa ku fiican wax walba inaad iskaga dhaaftid sidii uu yahay halkan waa marka qaybtii ugu muhiimsanaa aan hadda ku sheegay waxaad ka samaysanaysaa passwordkaas markaad ku xirtidna qof kale uma gudbi karo markaa shaygaaga ama faylashaada soo passwordka waxaan ka dhigayaa 2 halkan wuxuu ku leeyahay markaa repeat passwordkaaga mar kale geli soo saa u hubiso haddaad passwordka ku wareersan tahay inaad aragtid aad rabtidna qaybtan ayaad taawanaysaa sida arkaysid passwordka aad gelisay ayaad kuu muuqanayo soo marka passwordkaas aan geliyo waxaan leeyahay okay then haddana waxaan sii leeyahay okay sida arkaysid wuxuu bilaabay inuu qabto shaqo isla markii halkan waxaa ka soo booday file wata markaa calaamadda WinRAR-ka
hoostiisina ay ku qoran tahay tijaabo. Sida arkaysid marka hadda uu dhameeyay wuxuuna sameeyay markaa sanduuq wata calaamada winrarka wuxuuna ku xiray tijaabo. labada sanduuq waxa ku kala soocayn ayaa tahay midkan wuxuu leeyahay shortcut soo markaa dad fiirsid qaabab badan aad ku fahmi kartid noo jira inaad furtid xitaa aan noqotee. soo markaa midkan wuxuu leeyahay shortcut hadda ku wararsan tahay shortcutka wuxuu yahay isla shortcutka waxaan ka sameeyay muuqaal hore oo ku dhex jira markaa course-ka basic of computer. soo daawo course-kaas qaybtan kore aan ku soo saaraya biidnillah. soo marka hadda waxaan ku tusayaa qaabka aad u furi lahayd folderka aad samaysay ee ku qoran tijaabo. soo folderkan tijaabo ku qoran haddeertaan aad sameeyay marka ma furmaayo. sababtu uu furmayn ayaa waxay tahay ama sababtu uu adu furmana midkan ugu darsamay replace ku dhahay ayaa waxay tahay midkan arkaysi midkan waxay isla wataan hal magac waxaana gudahooda ku jiro marka file isku mid ah. soo marka hal folder ayaan deleedayaa midkan waa iska masaxayaa maadaama aan haysto asigoo marka ku xiran rar. soo midkan ay imaanaya waxaa leeyahay right click sida u furo. soo marka right click dhahdo wuxuu ku siinayaa options fara badan inuu ku dhaho open with winrar oo winrarka aad ku furto soo marka wada dheer aad marto. halkan wuxuu ku leeyahay extract file-kan hadda ku dhufto extract file-ka wuxuu marka ku siinayaa option kala duwan meeshaad dhigan lahayd iyo waxyaalo kale ayuu ku siinayaa laakiin waxa ugu fudud oo marka isla halkan uu kugu furayo soo marka file-shaada isla qaybtan haddeertan ayuu ku dhigayaa waxay tahay marka waxa lagu magacaabo extract here. soo marka extract here aad dhahay sida arkaysid isla markii waxa soo booday password haddaan passwordka isaga falaado aan dhaho okay waxba ima furaayo wuxuu leeyahay error incorrect password ayaad gelisay passwordka iska sax. soo passwordkayga saxda ayaan gelinayaa 1 2 3 4 midkaan isla ogeyn. soo marka passwordkaas aan geliyo sida arkaysid wuxuu bilaabayaa inuu socdo uu furo marka sida arkaysid waa kan file-kii waa inoo furay gudihiisni waxyaalihii oo idil way inoogu jiraan. soo muuqaalkeeni maanta intaan ayuu ku eg yahay waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iidtay. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب akhriskii aqoonta aanu qaadano ardaya iftiinka ana